howlgalkan oo qaatay muddo saacada ayaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamul goboleedka Puntland waxa ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi. ciidamada ammaanka Puntland ayaa howlgalkoodan si gaar ah ugu baacsanayay darawallada kaxeeya mooto bajaajta ka howlgasha gudaha magaalada Garowe. xogayaha maamulka dawladda hoose ee magaalada Garowe Maxamuud Cali Gurey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay xirxireen boqolaal kamida wadayaasha bajaajka ka howlgasha gudaha magaalada Garowe. xogayaha ayaa ku eedeeyay wadayaasha bajaajta in xilliyada habeenkii ah ay mootooyinkooda ka furaan taargooyinka lagu aqoonsan karo isla markaasina gabdhaha ku nool Garowe lagu geysto kufsi iyo sidoo kale dhac sida uu hadalka u dhigay xogayaha maamulka dawladda hoose ee magaalada Garowe. xogayaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ku eedeeyay wadayaasha bajaajta ka howlgasha Garowe in ay ka qayb qaataan falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Garowe. sidoo kale xogayaha ayaa sheegay in ay isku dayeen marar badan in ay la xiriiraan ama ay kala hadlaan arrintan wadayaasha bajaajta Garowe isla markaana ay ka biyadiideen inay u hoggaansamaan amarada ka soo baxa dawladda hoose ee maamulka magaalada Garowe.